وزارة إسكارتين تكنولوجيا الجمهورية الصومالية هي حفيز كهرمالين تمالقشة تايوان يمكن الله صقابيو ICDF أيام أنت وأي تاريخ تاي لبي لباتن كبيش شراد لبلا كون يافر يا لباتن كلا سعداي هشيس تاريخي والله جوهر قالين يو باسمها مشروع حرونتا كيد كحوتها يسوقد أمن كحوتها تكنولوجيا قرن كالصوماليان ناشنال داتا سنتر أن سايبر سيكوريتي سنتر هالشيء كان ويقولوا كهاين وزير وزارة إسكارتينتا يتكنولوجيا الصوماليان مدن دكتور أحمد يوسف الدريسي يسافر دالك تايوان الجمهورية الصوماليان أمباسطور آلان لو waxaa heshiiskaasi si rasmi ah u kala socday agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland mudane Yuusuf Farsama Xasan iyo sidoo kale safiir ku-xigeenka Taiwan u fadhiya Soomaaliland munaasabadda heshiiska lagu saxeexayay ayaa ka qabsoontay xarunta guud ee wasaaradda haddaba waxaa halkaasi hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Ahmed Yusuf Idris iyo sidoo kale safiirka Taiwan u fadhiya Soomaaliland Ambassador Alan Nuur maanta ay tahay 22 May bishii 2024 waxaan halkan u fadhinaa inaanu kala saxeexno mashruuc 4 sano socon doona oo dawladda Taiwan iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda mashruucan oo ku saabsan 3 dhardhaar oo waaweyn dhardhaarayna dawladda Taiwan oo dhisto xarun lagu kaydiyo xogta iyo xarun lagu ilaaliyo xogta iyo tababarka iyo kor u qaadida shaqaalaha wasaaradda oo diri doonto Taiwan qaar kamid ah dalkan lagu capacity gareyn doona iyo scholarships ku jira inay xarunta qalabayso iyo sii wadida tababarada ay u waday la xiriira ICT-ga ay u waday wasaaradaha kaliya dadweynaha Soomaaliland cidii ka faa'iideysan mashruucaas inta dabooli doona iyaan maanta halkan ku seexana oo meel taariikhi ah waran waxaan safiirka iyo xafiiska ICDF uga mahad celinaya sida wanaagsan ay ugu harbaxayaan qaranka Soomaaliland ee barakaysan ee nolol shaqeynayaan muddadii 4 sano ay wada shaqeynayeen mashruucii hore iyo kanaan imika wada wadno mashruucan oo ku cusub dalka noqon doona mashruucii ugu horeeyay ee la dhisay xarun qaran oo lagu kaydiyo xogta qaranka ee kala taadsanay meel bayna taal xaruntan waxay noqon doontaa xarun lagu ilaaliyo xogta muwaadiniinta Soomaaliland nooc walba leh xarun lagu kaydiyo xogaha qaranku leeyahay laguna ilaaliyo iyo noqon doonta xarun weyn oo ay dawladda Taiwan dhisto oo si casri loo dhiso loo qalabeeyo dadkii ka shaqeynayeen loo tababaro qaarna imika ku maqaynba Taiwan oo scholarship ku maqayn waxaan leeyahay hambalyo oo maalin taariikhi ah farxad gaar ah anagu ka wasaaradan oo tahay inaan muddadii aan joogay wasaaradda mashruucan inaanu dawladda Taiwan isla dhamaystirno maanta aanu sayaano mashruucna laga bilaabo noqon doona effective maanta hirgeli doono la bilaabi doono shaqooyinkiisii u horeeyay waa guul qaranka u soo hoyatay mashruucan xeerarkiisu way diyaarsan yihiin waxa yeelan baarlamaanka xeerarkii lagu maamulayay waa mashruuc isla dhashay xeerarkii oo dhameystiran mashruuciyo bilaabi doona qalabayntiisii iyo shaqaalihiisii iyo barnaamijka Taiwan bay ku maqaynaa oo iyagana si fiican oo casri loo tababari doono waxaan oran karaa waa guul weyn oo qaranka u soo hoyatay oo ay wada sameeyeen amba ay wada dhaliyeen goolkaas dawladda Taiwan iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland farxad gaar ah inoo tahay wad ku mahadsantiin saaxiibadayda Taiwan si wanaagsan wada shaqeynayno waa aad iyo aad baan mahadsantiin waxaan si gaar ah ugu mahad celinaya iyagana tiimkii wasaaradda sida habeen iyo maalin uga shaqeynay mashruucayna Taiwan ay wada shaqeeyaan waa mashruuc wasaaradda Taiwan baa wada dhaliyay wada fikirkiisa iyo halabuurkiisa lahaa tiimkaas oo hogaamiyaha agaasimaha guud iyo la taliyayaasha wasaaradda iyo agaasimaha xeedada inkuna wad ku mahadsantiin agaasime shaqada fiican ee qaranka to kick off the phase 2 ICT project from 2024 to 2027 I have very strong sentiment about this ICT project because this project phase 1 started from the 2020 after the establishment of the Taiwan Representative Office in Somaliland. And in 2021, we accomplished the SIZ through our joint effort. And then, until today, in the previous phase,
The 3 pillars are covered, including the government portal web establishment, data exchange system, that is the S-Road, and the Somaliland Innovation Zone. And I noticed that Somaliland Innovation Zone offers various ICT training programs. According to the information I have, so far, there are over 1,247 trainees passed the examination in 56 different training courses. maanta ay tahay 22 May bishii 2024 waxaan halkan u fadhinaa inaanu kala saxeexno mashruuc 4 sano socon doona oo dawladda Taiwan iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda mashruucan oo ku saabsan 3 dhardhaar oo waaweyn dhardhaarayna dawladda Taiwan oo dhisto xarun lagu kaydiyo xogta iyo xarun lagu ilaaliyo xogta iyo tababarka iyo kor u qaadida shaqaalaha wasaaradda oo diri doonto Taiwan qaar ka mid ah dalkan lagu capacity gareyn doona iyo scholarships ku jira inay xarunta qalabayso iyo sii wadida tababarada ay u waday la xiriira ICT-ga ay u waday wasaaradaha kaliya dadweynaha Somaliland cidii ka faa'iideysatay mashruucaas inta dabooli doona iyaan maanta halkan ku seexana oo meel taariikhi ah waran waxaan safiirka iyo xafiiska ICDF uga mahad celinaya sida wanaagsan ay ugu harbaxayaan qaranka Soomaaliland ee barakaysan ee nolol shaqeynayaan muddadii 4 sano ay wada shaqeynayeen mashruucii hore iyo kanaan imika wada wadno mashruucan oo ku cusub dalka noqon doona mashruucii ugu horeeyay ee la dhisay xarun qaran oo lagu kaydiyo xogta qaranka ee kala taadsanay meel bayna taal xaruntan waxay noqon doontaa xarun lagu ilaaliyo xogta muwaadiniinta Soomaaliland nooc walba leh xarun lagu kaydiyo xogaha qaranku leeyahay laguna ilaaliyo iyo noqon doontaa xarun weyn oo ay dawladda Taiwan dhisto oo si casri loo dhiso loo qalabeeyo dadkii ka shaqeynayeen loo tababaro qaarna imika ku maqayn Taiwan oo scholarship ku maqayn waxaan leeyahay hambalyo oo maalin taariikhi ah farxad gaar ah anagu ka wasaaradahan oo tahay inaan muddadii aan joogay wasaaradda mashruucan inaanu dawladda Taiwan isla dhamaystirno maanta aanu saxeexno mashruucna laga bilaabo noqon doona effective maanta hirgeli doona oo la bilaabi doona shaqooyinkiisii u horeeyay waa guul qaranka u soo hoyatay mashruucan xeerarkiisu way diyaarsan yihiin waxa yeelan baarlamaanka xeerarkii lagu maamulayay waa mashruuc isla dhashay xeerarkii oo dhammaystiran mashruuciyo bilaabi doona qalabayntiisii iyo shaqaalihiisii iyo barnaamijka Taiwan bay ku maqayn oo iyagana si fiican oo casri loo tababari doono waxaan oran karaa waa guul weyn oo qaranka u soo hoyatay oo ay wada sameeyeen amba ay wada dhaliyeen goolkaas dawladda Taiwan iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland farxad gaar ah inoo tahay waad ku mahadsantihiin saaxiibadayda Taiwan si wanaagsan wada shaqeynayno waa aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu mahad celinaya iyagana tiimkii wasaaradda sida habeen iyo maalin uga shaqeynay mashruucayna Taiwan ay wada shaqeeyaan waa mashruuc wasaaradda Taiwan baa wada dhaliyay wada fikirkiisa iyo halabuurkiisa lahaa tiimkaas oo hogaamiyaha agaasimaha guud iyo la taliyayaasha wasaaradda iyo agaasimaha xeedada inkuna wad ku mahadsantihiin agaasime shaqada fiican ee qaranka kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso